ugu dambeyn alxamdulilah muhiimadda waxay tahay inaad boqol biib heli kartid systemkaagana uu kuu shaqeyna aanu ku kalsoon tahay tradeka markaa qaadanayso. Wax wanaagsan gold ayaan waxaan rabaa fursad inaan ka baaro 1 hour time frame aan joogaa already sida muuqato saaka baayo ku bilowday waagi markuu bariyay marka waxaan isleenahay fursaddan yarta ah ee retracementiga uu soo sameyn doono ma ka qaadanay intuusan continuation ka sii gelin. marka waxaa aragtaan London low iyo London high inta way ku muuqanaysaa. London low hoosteeda waxaa yaala gap, before that gap impulsive kan inta noo yaalo ayaa rejection haday lagu sameeyay ama candle range-giisa lagu hoos xirmay. inta waxaan isleeyahay candle kan range-giisa maadaama lagu hoos xirmay over value gap kan inta yaalo oo noo muuqanayo at least inay soo buuxin karto gold. marka waxaan aadaynaa 30 minute candle ka hadda furmay haddii rejection block-gan laga soo celiyo at least 50% meelahan oo kale hadduu imaado maybe rejection yar inuu sameeyo kadib rejection kaas ayaa waxaan rabaa ilaa London low ilaa area-dan inaan fursadaas ka soo qaato hadduu eeba qadaro oo fursadaas ayna siiso way gold lahaa iska micno badan tahay. laakiin markii scalping-ka xaggeeda la aado fursado yar oo macquul ah waa la heli karaa ilaa true open-ka waa la target gareyn karaa. sidoo kalena area-dan waxaa ku muuqanayo inuu ku jiro imbalance ama fair value gap hadba saa u taqaanid. marka waxaan arkaynaa rejection kaas hadday soo ixtiraamto next meesha kale ee soo aadi doonto inay tahay meeshan. marka haddaa fiirisaan 15 minute candle kan rejection waaye high-giisa waa lagu soo hoos xirmay and then waxaan isleenahay daadashadan waa suurtagal waana macquul. fursadaas ilaa intay gaari kartaa ilaa 150 biib oo kale waa laga heli karaa area-dan zone-kan ilaa 150 biib meelahan. marka 150 kaas biib waa waxaan ugaarsanaya aan rabo inaan wax ka qaato hadduu ilaahay noo calfo haddii aan calaf ku lahayn nagu kala wadaan dhehena insha Allah. 5 minute already shift pure wili ma helin oo nadiif ah markii loo fiiriyo xataa line-ka haddaa fiirisid kanoo kale hadda lowga waa la jibiyey laakiin wili nadiif ma ahan. marka area-dan haddii aan dhahno waa buush gareyneynaa oo SL-ka London high gadaasheeda targetkaaga ilaa true open-kan okay kana marka riixayna insha Allah guul iyo guul daro wuxuu ku dhamaado kulay waa arki doonaa biidhnillah. ugu dambeyn alxamdulilah muhiimadda waxay tahay inaad boqol biib heli kartid systemkaagana uu kuu shaqeyna aanu ku kalsoon tahay trade-ka markaa qaadanayso. micno ma kuu soo kordhinaysa inaad biib badan aad qabatid laakiin waxa micnaha kordhinaya waxay tahay si joogto ah suuqan inaad wax ugu sameyn kartid setup-ka aad qaadanaysana aad taqaano nooca uu yahay. dadka qaar sawirka ilaa ATB-gooda laga gaarayo way ku xisaabtami karaan sax that is good laakiin biibkan yar boqolka biiba calculation u samaysan kartaa isagaa ka trade gareyn kartaa oo qaadan kartaa partial-kaaga. anaga hadafkayga wuxuu ahaa ama teamkayga anigaba inaan boqolkaas biib aan sukuur gareyno already markii trade-ka before-kiisa kana isaga ah waa la share gareeyay teamka saa inta ka wada aragtaan quraacaan raadinayna breakfast alla alaabtan ma garateen waxaan rabnay in aan si nadiif ah boqol biib aan u helno. markii aan helno kadib ugu dambeyntii waxaa aragtaa boqolkeena biib inuu sukuur gareysanay. fikradahana saasaan iskula wadaagnaa especially dadka aan tababaray aan train gareeyay ee sniper-ka ah ee ku jira gruubyadeenna. qof walba iskama soo gala gruupkan qof aan ku kalsoonahay aan soo dhisay wax soo bartay gacantiisa fadhido oo maxaa la yiraahdaa suuqa fahmaya mindset-kiisana awood uu leeyahay unbaa ku biiri kara gruupkaas. marka suuqan uu baaxad weyn yahay cilmi badan oo u baahan yahay ha ka caajisin. adduunka digital u socdaa la jaanqaad noqo qof fursadaha digitalka ah ka faa'iideysta adoo gurigaaga joogo sariirtaada dul saaran 1 kiliga lacag ku sameyn kartaa adoona 9 to 5 aadan ku wareerin. marka cilmiga xooga saara aad u mahadsantiin one love haddaa hore noola joogto waa mahadsan tahay haddaa nagu cusub tahayna nagu soo biir.